xaafadda tan Kordamac degmada Daynile ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ka socda dhismaha masjidkan Al-Huda oo ah mid hadeertan ay taagan tahay baahidiisa horaantii isbuucan ayaa waxay ummadda Soomaaliyeed ugu baaqeen Dr. Shaabubakar Xasan Maalin iyo Sheekh Maxamuud Abu Abdullah Arif in ay ka qayb qaataan dhismaha beedkan Alle marka beedkan Ilaahay iyo halkan laga bilaabayo waxa la rabaa dadka Soomaaliyeed inay waxooda wax ka soo qaadaan oo mujtamaca dhan uu ka dhaxeeyo oo meeshaas ajir laga xusubsado adduunyadan wixii aan uga tagno oo maala wax annaga noloo nisbayhaya ma noqonayo waxa la yiraahdaa maalul waarisa la dhahaa qofka ku dhaxlaaya maalu iska leeyahay weeye maalinta adigu dhimato xoolihii aad ka dhimato adiga waa ka guureen rasuulkeena kaleey salaam wuxuu dhahay maalu kama qadamto dhahay wa maalu waarisika ma akharta maalkaaga saxda ah waxaad hormarsato waay oo meeshaan oo kale intood masjidkan iyo meelaha khayrka aad kula baxdo laakiin hadda munaasabadu waxa weeye masjidkan Masjidul Huda waay loo magac baxshay maalkii aad kula baxdo ayaa maalkaaga saxda ah macnuhuna ma ahan ina maaratay adigu kaliga masjidka dhista maahan haddaad shamiita u keento haddaad dhagax u keento haddaad bir u keento haddaad maaratay wax kastoo masjidkaas maaratay wax looga qabay haddaad u keento haba yaraada hase weynaadaane ilaahay subxaanahu wa ta'ala alcaaf almudaacaf kaaga dhigaya waa sida sheekhu inoo sheegay walaalayaal halkan hadda aanu taagannahay waa degmada Daynile gaar ahaan xaafadda loo yaqaano Kordamac ayaan walaalayaal hadda aanu taagannahay waxaa halkan asaas hadda laga samayn masaajidka loogu magac daray Masjidul Huda waxaanu doonaynaa walaalayaal oo ugu baaqaynaa walaalahayna dhageysanaya dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ku sugan masaajidkan xaafadan Kordamac ku yaala in ay soo taageeraan gacan naxariis leh ay u fidiyaan jeebabkooda akoonadooda iyo quluubtoodaba iyo gacmahoodaba ay u firaan maxaa yeelay walaalayaal faa'iidooyin fara badan oo kuwa adduunyo iyo kuwa aakhiraba isugu jira ayaanu ka helaynaa beedkan Ilaahay Masjidul Huda haddaanu soo taageerno oo gacmaheena iyo jeebabkeennaba aanu u furanno faa'iidada ugu weynaynu ka helayno waa maxabbatullah in Ilaahay nagu jeclaanayo subxaanahu wa ta'ala haddaanu gacmaheena furno oo guryaha Ilaahay iyo masaajidda Ilaahay aanu u furno Sheekh Abdullah Maxamuud Ali Jimcaale oo ah maamulka masjidkan ayaa ummadda Soomaaliyeed u ballan qaaday in waxa ay la baxaan loo gelin doono masjidka dadka dal iyo dibad baa naga daawanay waxaan leenahay masjidkaas waxa weeyaan Masjidul Huda oo jeedaan akoomadiisi waxaanu idin ballan qaadaynaa Ilaahay hadduu yiraahdo wixii soo gaara masjidkaas inaan gelino oo aan ka xalaal miirano annaguna afkayga iyo calooshayada iyo waxa weeye aanan u ogolaan cid kalena aanan yaani inta ka sarfina masjidkaana ku bixin waxa weeye wixii ballan qaadkaas idin haystaan annagana mas'uuliyadaas Ilaahay nala garab galo dadku wixii ay noo dhiibaan masjidka bay u galayaan boorarka buu leeyahay magaciisu waa ka asalka ka muuqda akoomadaas baan u sameynay dadka muxsiniinta oo adduunka naga daawanay waxaan leenahay nagala qayb qaata sida culimadu u sheegeen taasi waa halkaas midda labaad dhaqaalaha sida sheekhu u sheegay injineerku wuxuu $260,000 baa gelaysa ayaduna waa dhaqaalo aanan annagu diyaarin laakiin aan bilowno aan ugu talagalnay inta bilowna dadka muxsiniinta inay waxa weeye qaybtooda ka qaataan oo naga soo gaaraan baahiyaha gaarka ee masjidkan ayaa lagu tilmaamay inay tahay birta dhagaxa iyo carrada iyo shamiitada Maxamed Cabdi Cadde Hadi Diin TV magaalada Muqdisho